soo dhawaad saaxiibayaal application-ka soo jeeda update lagu sameeyay aniga hadda waxaan ka sameeyay isla justy 70 senti ayaan ka sameeyay waana kala bixi karaa waxaan ku tustoonaa in lacagtaada ay kala bixi kartid haday ku tahay 20 hadii lacagta aad doonto ka sameey wala bixi kartaa okay ana ku tustoonaa insha Allah ilaa EVC xitaa ku tustoonaa su'aalo kooban laakiin lacagta 70 ayaan inta sida kula bixi kartid oo ATM aan kula kiisi kartid ayaan ku tustoonaa insha Allah okay RTM intaan gudaha u sii galin oo aan ku tusin ka hor qaabka lacagta loogu sameeyo update lagu mariyo ayaan ku tustoonaa insha Allah waliba anagoo xaqiiqada ku tusdoono soo qaybta u jidaan hoos marka timaadid waxa ku tusdoonaa qaybtana u jidaan waxa uu ku leeyahay yani qofka uu dirtid oo saaxiibkaaga kamid ah waxa ku heli doontaa 10 city qaabku update-ka cusub la keenay soo jidaan hal qof oo diraysa 10 city aad doontaa sidoo kale waxa jirto qaybo kale oo xakamid ah qaybana u jidaan daawashada oo kale waa daawanaysaa muuqaaladan sidoo kale waxa ku helaysaa lacag ayaa ku heli doontaa okay ka soo baxinta waxaan rabnaa lacagta inaan kala baxno ku tuso insha Allah lacagta aan kala baxayo soo hadda 70 ayaa ku jirta meesha soo jidaan waxaan rabaa inaan kala baxo soo jidaan lacagta ugu yar kala bixi karo waa 30 city waa ka soo jidaan waxaan la bixi doonaa waxay tahay application-kan RTM-ka oo hore u taqaaneen lacagta igu jirtana waa ku tustoonaa insha Allah waxa ku jirta xoogaa sentiyaala ku jiraan 44 senti ayaa ku jirto marka waxaan rabnaa inaan kala soo baxno inta aan keeno insha Allah ila daawo muuqaalka dhameyso waxaan taawan doonaa qaybta RTM-ka kabacdi waxaan dhigi doonaa confirm marka waxaan gelin doonaa RTM-ka Gmail-ka aan ku furtay RTM-ka Gmail-ka aan ku furtay gelin doonaa soo jidaan waa kaasa waan galshay soo jidaan waan galshay gmail.com dhigi doonaa soo hadana inta waxaan gelin doonaa lacagta aan yani diri doona insha Allah 70 ka waa geliyay kabacdi waxaan dhigi doonaa verify aan dhigi doonaa verify kabacdi confirm aan dhigi doonaa soo jidaan hadda lacagtii waa ay baxday waxa leeyahay lacagta congratulation waa ku istay successful withdrawal waa ka jidaan waa kaasa lacagtii waa ku istay soo baxay waa xaqiijin doonaa insha Allah anagoo imaan doona qaybtanka intaan imaanin ka hor waxa laga rabaa qaybtan si transaction ina fiirisid transaction kan ayaa fiirin doonta sababtan hadda waxa uu ku jiraa pending ayuu ku jiraa pending ka markuu baxo saan noqdo oo kala provide kan hadda lacagta meesha ku jirto oo ku tusay 44 sentiga lacag inta kala soo baxay 43 inta kala soo baxay hal sentiga ku jirta 44 isku noqotay sawjidan haddana waxa ka soo baxay 70 waxa ugu jirtay 44 waxa ugu geysaa 70 sawjidan waxyar ka bacdi way soo gaari doontaa insha Allah waxa way baqshada ku soo dhici doonto faad waa inta pending ka baxdo inta markay pending ka baxdo oo noqoto profile soo pending process ayuu ku jiraa pending ka marka uu ka baxo ay lacag soo dhici doontaa okay hada lacagtii waa la soo baxay hadii aan fiirino qaybta transaction-ka waxa la soo qoray tig ayaa la saaray waana soo xaqiijin doonaa insha Allah waxaan booqanay RTM-ka verified ayaan dhigi doonaa saan wax xaqiijino in soo gaartay in kale xaqiijin doonaa soo inta taabana marka inta taabto aad ku soo laabana marka aad ku soo laabto sawjidaan aad ku soo laabto waa ka sawjidaan oo ku soo laabana soo marka ku soo laabto okay waan ku soo laabana verified dhigi doonaa okay hal sawjidaan waxay isku noqotay $1 iyo 14 senti $1 iyo waxay isku noqotay 14 senti ayaa isku noqotay $1 iyo 14 senti sawjidaan hadda aan rabo inaan kala baxo ATM-ka waxaan sameyn karaa withdrawal aan dhihi doonaa withdrawal markaan dhaho sawjidaan waxaan kula bixi karaa laba qaab bangi Soomaali ayaan kula bixi karaa $3 ayaa u yar waa Salaam Bank aad taqaanaan sidoo kale platform oo kula bixi kartaa Salaam Bank oo iska taqaana waa bangi Soomaali lacagtaada oo ku dirsan kartaa waa taabsan kartaa si toos ah ay kula bixi doontaa aad iyo aad waxaan rajeynayaa inaad fahanteen muuqaalka nuxurkiisa aad kaga bogoteen insha Allah waxa way ka faa'iideyso application-ka muhiim ayuu ku yahay aad u maasantay saaxiibayaal